waxaan qayb qaadanayaa barnaamijka muwaadin dhiiran waxaan mahad celinayaa saaxiibadii ku martiqaaday barnaamijka muwaadin dhiiran maanta laba qodob inaan ku hadli doonaa qodobka waxa noqon doonaa saameynta ay ku yeelato bulshada in qashinka lagu dhex qubo dhexdeeda caadiyan qashinku waa sida dambiil oo kale qofka ku dhex tuura bulshada qashinku waxa uu ka dhigan yahay qof bulshada dab qabadsiiyey sidaa daraadeed waxyaabo qodob waxaan sheegi doonaa ay sababto in qashinka lagu turo dhulka ama meelaha danta guuda qodobka ay sababto waxa weeye cudurrada deegaan walba inta uu ka fog yahay qashinku ayaa uu ka fog yahay cudurrada sidaas la mid ah waa inaynu ilaashanaa badqabka caafimaadkeena iminka waxaanu ku jirnaa cudurka coronavirus oo dadweynaha aad u saameeyey dalkeenaba waxay sababi karaan cudurro coronavirus la mid ah iyo kuwo kasii awood badan sidaa daraaddeed waa inaynu iska jirnaa cudurrada safmarkaa ay sababi karaan qashinka la tuuraa saaxiibayaal qodobka labaad ee sababi karta waxa weeye carro-guur in carrada ama dhulka korkeeda lagu turo waxyaabaha qashinka iyo waxyaabaha la isticmaalay waxay sababi karaa in carradu noqoto madhalays ayna waxba ka soo bixi waayaan sidaa daraaddeed muwaadin kastu waa inuuna ku tuurin waxyaabaha uu isticmaalay ama waxyaabaha qashinka carrada gurkeeda ama waxyaabaha inta guud loo leeyahay sidoo kale waxay sababi kartaa bilixumo deegaan walba waxaa lagu qiimeeyaa bilicdiisa indhaha qof walba soo booqdo deegaankaasina waxa uu arkaa bilicda deegaankaas haddaba waxa bilicdu waa muraayad laga eego horumarka dalkaasi iyo wacyiga dadka iyo dhalinta ku nool sidaa daraaddeed bilixumo ayay noo sababi kartaa qashinka oo lagu tuuro meelaan habboonayn haddaba saaxiibayaal maxaa lagaga hortegi karaa ama saamaynta aynu ku yarayn karnaa saamaynta waxaynu ku yarayn karnaa number 1 waa in la sameeyo iskibiino ama meelaha danta guud loogu talagalay oo lagu rido waxyaabaha qashinka meeshaas oo loo sameynayo meel kastoo dad isku yimaadaan meel kastoo dan guuda iyo meel kastoo checkpointia sidaa daraaddeed waxay sababaysaa in qofka muwaadinkii uu helo biyaha uu isticmaalo iyo waxyaabaha rabo marka uu isticmaalo meel uu ku rido qodobka labaad ee xalin kara arrintaas waxa weeye in wacyigelin badan la sameeyo oo muwaadin kasta uu ku biirado waxa uu isticmaalo inuu ku rido meesha loogu talagalay sida uu ilaalinayo badqabka iyo nadaafad qabka xaafadiisa uu tan guud u ilaaliyo qodobka saddexaad oo aad iyo aad u muhiim waxa weeye in la sameeyo maareynta qashinka qodobka saddexaad oo aad iyo aad u muhiim waxa weeye in la sameeyo maareynta qashinka iyo dib isticmaalida qashinka la maareeyo oo meel loogu talagalay loo sameeyo waxa uu saacidi karaa in ay ka fogaato bulshadeenu waxyaabaha soo sheegna cudurrada si la mid ah in dawladda iyo maamulku ay isku xilqaamaan in qashinkan dib loo isticmaalo oo laga sameeyo waxyaabaha qaar qashinadu waxay anfici karaan in dib loo warshadeeyo aan dib u isticmaali karno waxyaabaha kale ay sababi karto ee qodobadii ku aan raacin waxa weeye urta qashinka soo isku urura wuxuu sababaa ur taasi oo la mid ah qof waxyaabaha la yiraahdo second hand smoke cigarette qofka gacanta labaad sigaar ku cabo kale ee qof sigaar cabo garab fadhiya urtaasi waxay saameyn kartaa sanbabada qofka iyo neefsi qofka marka waa in meelaha qashinka danta guud la geeyo iyo deegaanadu waa inayna sinaa ugu dambeyn saaxiibayaal deegaankeena aanu dhowno wadajir aanu ilaalino caafimaadka deegaanka muwaadin dhiiran dhammaantiin waa mahadsantiin